بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمدا رسول الله هو الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فجزاك الله خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه ترك لنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فسلك السعداء من أمته على نهجه القويم وضل عنها المبطلون وبعد ولا ليال waxaanu wax ka sheegi doonaa taariikh nololeedkii saxaabigii la oran jiray cabdullaahi ibnu xudaafa assahmi cabdullaahi ibnu xudaafa wuxuu iska leeyahay laba qiso oo waaweyn ayuu iska leeyahay oo noloshiisa soo martay oo wax lala yaabo ah qisa waxay ku dhacday markii uu boqortooyadii kisra uu ka talinayey warqad loogu dhiibay ee nabigu uu warqad ugu dhiibay calayhi salaatu wasalaam sanadkii lixaad ee hijriga meeshaas oo noloshiisii ay khatar ku gashay cabdullaahi ibnu xudaafa assahmi cabdullaahi ibnu xudaafa assahmi markuu u tegayey boqorka kisra sababaha uu ugu tegey ayaa waxay ahayd sanadkii lixaad ee hijriyada ayaa wuxuu go-aansaday nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu diro koox ka mida saxaabadiisa inuu u diro qoraalladaas oo ku socda boqorrada iyo qabqablayaasha adduunka xilligaa ka talinayey wuxuuna nabigu calayhi salaatu wasalaam boqorrada iyo qabqablayaasha ugu baaqayey inay ku soo biiraan nuurka islaamka kana soo baxaan mugdiga iyo jahliga ay ku jiraan wuxuu nabigu doonayey inuu ballaariyo dacwadiisa kuna baahiyo adduunka guud ahaan wuxuu nabigu u doortay calayhi salaatu wasalaam warqadahaas uu boqorrada adduunka ugu kala diraayo inay qaadaan rag geesiyaalah oo naftood horayaalah oo mujaahidiin ah ayuu u doortay warqadaha inay xambaaraan haddaba nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ogaa safarkan ay ku tegayaan cabdullaahi ibnu xudaafa iyo ragga la midka ah dunida oo warqadaha ay u geynayaan boqorrada adduunka inuu yahay safar halisa maxaa yeelay boqorradan wuxuu nabigu ugu baaqayey diimahoodii intaasoo boqol oo sano ay soo heysteen inay ka soo haraan wuxuu ugu baaqayey boqortooyadooda iyo dadweynaha xoogga ay ku haystaan inay ka digtoonaadaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala xarigiisa ay qabsadaan haddaba nabigu calayhi salaatu wasalaam markii uu doonayey inuu warqadaha u dhiibo saxaabadiisa qaybo ka mida khudbo ayuu la istaagay wuxuuna yidhi ama bacdu fa innii uriidu an abcaha bacdakum ilaa muluuki alacaajim falaa takhtalifuu calaya kama اkhtalafat banuu israa'iila calaa ciisa bni maryam wuxuu yidhi intaa ka bacdi waxaan doonayaa inaan u diro boqorrada adduunka ka taliya qaybo ka mida inaan warqado u diro warqadahaasna aan u dhiibo rag adinkaydin ka mid a marka amarkayga ha khilaafinina waxa weeye sidii reer banu israa'iil ay u khilaafeen nabigoodii ciise bnu maryam ha igu gacan sayrinina oo amarkayga ha diidinina waxaan doonayaa inaan warqadahaas aada qaadaan ood u geysaan boqorrada adduunka waxay ugu jawaabeen saxaabadii nabiga calayhi salaatu wasalaam naxnu yaa rasuula allahi nu-addii canka maa turiid fabcahnaa xaydu shi'ta rasuulka ilaahayow annaga ayaa gaarsiinayna warqadaha aada doonayso inaad adduunka ku baahiso meeshaad doontana noo dirso ayay ku yidhaaheen haddaba rasuulku calayhi salaatu wasalaam lix nin oo saxaabadiisa ka mid ah ayuu wuxuu u doortay inay xambaaraan ama ay qaadaan warqadahan lixdaa nin waxaa ka mid ahaa cabdullaahi ibnu xudaafa assahmi ayaa ka mid ahaa cabdullaahi ibnu xudaafa assahmi waxaa isaga loo doortay warqaddii nabiga inuu qaado calayhi salaatu wasalaam una geeyo boqorkii la ohan jiray kisra oo markaa ka talinayey dowladdii weyneyd ee la ohan jiray faris
cabdullaahi ibnu xudaafa waxa uu diyaar garaystay daabaddii uu fuuli lahaa, wuxuuna sagootiyey cabdullaahi xaaskiisii iyo carruurtiisii sidii nin wuxuu u sagootiyey aan dib u soo laabanayn. cabdullaahi wuxuu ku dhacay faraskiisii markuu gaaray magaaladii faris, carriga faris markuu gaaray ayuu wuxuu dadkii weydiistay inuu boqorka u galo oo loo geeyo ninka boqorka ah maadaama uu warqad u sido. madaxweynihii kisra wuxuu is yidhi nin weyn baa kuu soo socdo arrimo siyaasadeed iyo waxyaalaha kaala hadlayee xafiiska bal sii qurxi. xafiiskiisii ayuu si wanaagsan firaash ugu goglay waana qurxiyey, wuxuuna boqorku isugu yeeray carrigii faris shakhsiyaadkii magaca ku lahaa ama go-aankuba xaggooda uu ka soo baxayey ayuu isugu yeeray. markaa kabacdi ayuu boqorku wuxuu idan siiyey cabdullaahi ibnu xudaafa asahmi saxaabigeennan oo uu yidhi ha soo galo xafiiska. cabdullaahi ibnu xudaafa asahmi uu soo galay isagoo isku duuduubay go' oo markaas bashaashnimada ay ka muuqato wejigiisa, iimaankuna uu ka muuqdo, ayuu xafiiskii soo galay go-iisa sita. maxaa yeelay saxaabada nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa iyaga qalbigooda ku weynaa ilaahay cadamadiisa iyo jalaalkiisa iyo weyninkiisa, taa un bay ka shaqaynayeen saxaabadu. wax dana kama lahayn inay korkooda iyo mandarkooda iyo labiskooda ay qurqurxiyaan ama inay dadka indhahooda ay soo jiitaan, saa uma aysan danaynaynin. waxay danaynayeen meesha eebbe uu fiirsanayo oo qalbiga inay halkaa uun hagaajiyaan. haddaba saxaabigan oon sidaas u labisnayn ayaa u soo galay boqorkii ka talinayay faris oo kisra. boqorkii markuu arkay ninkan reer baadiyaha u eg ee warqadda sida, wuxuu yasay ninkii saxaabiga ahaa cabdullaahi ibnu xudaafa asahmi, wuxuuna yidhi warqadda ha la iga soo qaado, anigu warqad ninkaa ka qaadi maayee iga soo qaada warqadda ayuu ku yidhi. cabdullaahi ibnu xudaafa waa loo yimid oo waxaa la yidhi boqorku wuxuu ku leeyahay keen warqadda. wuxuu yidhi cabdullaahi ma dhiibahaya buu yidhi warqaddan, aniga rasuulku wuxuu i amray calayhi salaatu wasalaam warqaddan inaan gacantiisa isaga ugu dhiibo boqorka, mana doonaayo inaan jebiyo amarkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam. madaxweynihii kisra ayaa markaa raggiisii ku yidhi iska daaya, ha ii soo dhowaadee. cabdullaahi ibnu xudaafa wuxuu u dhowaaday boqorkii kisra ilaa uu gacantiisa uga geliyey warqaddii uu nabiga uga siday calayhi salaatu wasalaam. madaxweynihii kisra wuxuu u yeeray maadaama isagu uusan warqadda akrin karin, aqoonna uusan u lahayn afka carabiga, nin af carabiga yiqiinay oo u dhashay gobolka xiira ayuu u yeeray. wuxuuna yidhi warqadda horteeda bal ku fur, iguna dul akri warqadda. warqaddii sida tan ayaa laga akriyey. waxaa ku qoran bismi illaahi الرaxmaan الraxiim min muxamedi rasuuli الlah ilى kisra cadiimi faris salaamu calى man itabaca alhuda. magaca ilaahay ayaan ku bilaabaa ayuu nabigu warqaddiisii ku furfuray calayhi salaatu wasalaam. warqaddani waxay ka socotaa moxamed oo rasuulka ilaahay ah, waxayna u socotaa boqorka kisra oo carriga faris ninka taliyaha ah ee faris ninka ugu weyn ah, talada farisna haya ayay warqadda ku socotaa. nabadgelyo allaha yeelo qofkii waddada hanuunka raaca ayaa warqadda ku qoran. boqorkii markuu maqlay warqadde oo ciwaankeedii hore intaa uu ka dhegaystay, isagii dhammaa wuu bararay. halbowlayaashii iyo xididadii ayaa ka bararay guud ahaan kulligiis, wuuna xanaaqay. wuxuuna warqaddii ka soo jiiday
ninkii akrinayay warqadda ayuu ka soo dafay boqorkii. markuu warqaddii ka soo dafay wuu dildilaaciyey warqaddii nabigu uu usoo diray calayhi الsalaatu wasalaam, wuu jeexjeex isagoon boqorku dheg jalaq u siinin hadallada kale ee warqadda kusii qoraa isagoon ka fiirsan ayuu warqaddii dildilaaciyey. wuxuuna yidhi kisra ayaktubu lii bihada wahuwa cabdi, ma nebi maxameda aniga warqad iisoo diraya isagoo oo la mida addoommada aan ku shaqaysto. nebi maxamed addoommada aan ku shaqaysto ayuu la mid yahay, ma anigu hadda warqad iisoo dirahay ayuu yidhi. subxaana allah, subxaana allah. bal eega walaalayaal, ninkaa wuxuu ku hadlahay waa madaxweynihii faris ka talinayay xilligii nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam, markuu nabigu warqad uu u diray oo ugu baaqaayo inuu soo islaamo. ya addoommadayda aan ku shaqaysto nin la mid oo kale weeye, markaasuu iisoo dirhayaa miya warqad. madaxweynihii wuxuu amar siiyey ninkii saxaabiga ahaa oo warqadda siday, cabdullahi ibnu xudaafa asahmi, ha laga saara buu yidhi majliskayga, ha la cerday ninka warqadda ii keenay, ha laga saara buu yidhi fadhigayga. waa laga saaray xafiiskii cabdullaahi. cabdullahi ibnu xudaafa wuxuu ka baxay madaxweynihii kisra xafiiskiisii isagoon ogeyn waxa lagu samayn doono, talow in la dili doono iyo in la iska fasixi doono. laakiin wuxuu cabdullaahi go-aansaday maadaama aan anugu ballankii nebi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam aan fuliyey oo go-aamadii nebi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam uu isoo dhiibay aan gacanta ka saaray, haddii la doono hala dila buu yidhi. madaxweynihii markii xoogaa caradii ay ka xasishay ayuu yidhi bal hala ii keeno cabdullaahi ibnu xudaafa asahmi, hala soo celiyo. waa la raadiyey cabdullaahi, waa la waayey, sababtoo ah markuu baqay waddada ayuu isaga dhacay, wuuna cararay cabdullaahi. cabdullaahi ibnu xudaafa asahmi wuxuu u yimid nabiga calayhi الsalaatu wasalaam, wuxuuna warbixin iyo faahfaahin dheeraada ka siiyey wixii uu kala soo kulmay boqorkii kisra. wuxuuna u sheegay inuu boqorku dildilaaciyey warqaddii nebi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam uu u soo diray. wuxuu nabigu ku dhawaaqay hal eray bis, wuxuu yidhi mazaqa allahu mulkah, boqortooyadiisa allaha dildilaaciyo sida warqaddayda uu u dildilaaciyey. boqortooyadiisa allaha dildilaaciyo sida warqaddayda uu u dilaaciyey buu yidhi nabigu calayhi الsalaatu wasalaam. allahu akbar. madaxweynihii kisra intaa kuma gaabsan, wuxuu warqad deg dega u qoray ninkii la odhan jiray baadaan ee ka talinayay carriga yeman oo isaga yeman u xukumay. wuxuuna yidhi war ninkan carriga xijaas ka soo baxay ee lagu sheegayo nebi moxamed, waxaad u dirtaa buu yidhi 2 nin oo xoog leh, waxaadna 2daa nin amar ku siisaa buu yidhi si deg dega ha iigu soo xirxiraan ninkaa nabinimada sheegtay oo arrinkiisa uu gaaray hadda inuu warqad iisoo qoro, ha la iigu keeno si deg dega ninka hadda nabinimada sheegtay. haa yuusanna daahin u sheega. haddaba baadaan wuxuu u diray nabiga calayhi الsalaatu wasalaam 2 nin oo xoog leh, wuxuuna ku yidhi si deg dega ugu sheega kisra ayaa u yeeray. baadaan wuxuuna 2dii nin uu u sheeguu yidhi bal iisoo baara nebi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam waxa dadka uu u sheegaayo iyo waxa dadka uu ugu baaqaayana bal ha la iisoo sheego. 2dii nin way baxeen, waxay gaareen carriga daa'if. iyagoo nabiga aqoon u lahayn ayay waxay su-aaleen niman ganacsataa ee ka mid ah qabiilka reer quraysh. waxayna su-aaleen ka warrama nebi moxamed xagguu joogaa, xaggeesa laga helaa.
waxay yidhaaheen nebi moxamed waxaa laga helaa magaalada madiina. waxay yidhaheen nebi moxamed waxaa noo soo diray madaxweynaha la yidhaha kisra, wuxuuna yidhi si deg dega ha la igu keeno, waan xiri lahaa, jeelkaan dhigi lahaa. nimankii ganacsatadii gaalada ah reer quraysh aad ayay ugu farxeen, waxayna isdhahayeen iyagoo isku tahniyadaynaya qaruu cayna fa ina kisra tasaddaa limuxamedin wakafaakum sharah. war indhihiina qaboojiya, indhihiina qaboojiya, nebi moxamed waa loo soo baxay calayhi salaatu wasalaam. waxaa u soo baxay madaxweynihii adduunka ugu awoodda badnaa ee kisre la odhan jiray ayaa u soo baxay, isagaana shartiisa idinka kaafinaya. hadda kabacdi ishiisa qorax ma arki doontaan. dhibkii uu idinku hayay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waa laydinka qabtay oo ninkaa boqorka ahaa xabisahayee ogaada. saasay isugu tahniyadaynayeen gaaladii reer quraysh. labadii nin way issii daayeen, waxayna aadeen magaaladii madiine oo nabigu uu ku noolaa calayhi salaatu wasalaam. markay magaaladii galeen waxay la kulmeen nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam, waxayna u gudbiyeen nabiga warbixintii. waxayna ku yidhaaheen boqorka kisra ayaa wuxuu warqad u soo qoray baadaan oo ninka yeman xukumo ah. warqaddaasina waxay lahayd nebi moxamed ha isoo gaaro si deg dega, si deg dega ha isoo gaaro. marka haddaad nebi moxamedow boqorka u tagto kisra waan kaa barbaryaynaa si uusan kuu xabisin, laakiin haddaad diiddo ood ka madax adeegto hanjabaadda boqorka iyo wicitaanka boqorka uu ka soo wacay, waad og tahay awoodda kisra uu leeyahay inuu adiga ku halaago iyo qowmiyadda aad ka dhalatay guud ahaanba. haddaba markii nimankii hadalkaa ay sheegeen, nabigu u dhoolla caddeeyey calayhi salaatu wasalaam, una ku qoslay, wuxuuna yidhi irjicaa ilaa rixaalikumaa, irjicaa ilaa rixaalikum alyowm waatiyaa gadaa. bar maanta bal iska laabta. niman wax ogma tiidaane, ninka maanta dhahaya nebi moxamed aan xabisahaya, jeelka aan dhigahaya, iigu soo yeera, iyo adinku waxba isma dhaantaane, bal horta berri ii imaada, maantana iska laabta. way iska laabteen nimankii. subixii ayay ku soo kalleheen nabiga calayhi salaatu wasalaam, waxayna ku yidhaaheen hal acdadta nafsaka lilmudiyi macnaa ilaa liqaa'i kisra. waxay yidhaaheen ma diyaarisay naftaada oo diyaar ma u tahay inaad la kulanto madaxweynaha kisra? ma isu diyaarisay? wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam lan talqayaa kisraa bacda alyowm. maanta wixii ka dambeeya kisro la kulmi maysaan buu yidhi. falaqad qatalahu اllahu xayثu sallada calayhi ibnahu shirawayhi fii leylati kada min shahri kada. waxaan idiin sheegayaa buu yidhi nimankiinan madaxweynihii kisra la odhan jiray saacaddan inuusan noolayn. ilaah baa dilay. rabbi wuxuu ku salliday wiilkiisii la odhan jiray shirawayh, waxaana la dilay habeenkii sidaa ahaa. taariikhdu markay intaa ahayd ayaa la dilay. waxba ma ogidine marka reerkiinni uusan idinka dayacmin. bakti gaalkaasiya aniga hadda ii hanjabaayo hala soo xabiso nebi moxamed dhahaya calayhi salaatu wasalaam, wuu baktiyey orodoo iska tagay, wiilkiisiyaa ilaahay ku salliday. waxba ma ogidine. haddaba labadii nin ayaa nabiga wejigiisa ku indha gubay calayhi salaam, si xun ayay u feeriyeen. waxayna yidhaaheen atadri ma taqul anaktubu bidalika libaadaan. war waxa aad leedahay ma ka fiirsatay? hadalka aad leedahay ma kuu xisaaban yahay? warka hadda aad leedahay ma u gudbinaa baadaan oo kisra dhintay ma u sheegnaa? wuxuu yidhi haa u sheega. waxaadna ku tidhaahaa ninka yeman xukuma diintaydu waxay gaari doontaa boqortooyada kisra meesha hadda ay ka dhisan tahay, islaamku wuu gaari doonaa.
adigana haddii aad soo islaamto ya baadaanow boqor ayaan kaaga dhigi qowmiyadda aad ka dhalatay waxaana ugu baaqayaa ninka yaman xukuma naftiisa inuu diinta islaamka qaato. labadii nin way baxeen waxayna u soo galeen ninkii yaman xukumayay baadaan waxayna u sheegeen khabarkii iyo sheekadii ay kala kulmeen nebi moxamed calayhi الsalaatu wassalaam. baadaan ayaa yidhi nebi moxamed warka uu sheegay hadduu run noqdo waa nebi xaqa, laakiin hadduusan warka uu sheegaayo uusan run noqon ra'yi kale ayaan ka qaadan doonaa. baadaan isla markiiba waxaa ku soo dhacday warqad uu soo qoray shiiraweyhi. warqaddaasi waxay leedahay baadaanow aabbahay oo kisra ah anigaa dilay, waxaana u dilay buu yidhi wuxuu xalaal ka dhigtay dadkii sharafta lahaa inuu aabbahay dilo, wuxuu xalaal ka dhigtay dumarkii inuu qafaalo, wuxuu xalaal ka dhigtay dadka hantidoodii inuu boobo. marka maadaama aabbahay aan dilay adigana waxaan rabaa inaad ka mid noqoto dadka maaragtaahay gobollada ii xukuma inaad ka mid noqoto ayaan kaa rabaa baadaanow. baadaan markuu akriyey warqaddii shiiraweyhi oo uu leeyahay aabbahay anigaa dilay, warqaddii uu iska tuuray baadaan, wuxuuna caddaystay inuu islaamka ku soo biiray oo hadda kabacdiba gaalnimadii uu ka haray. haddaba taasi walaalayaal waxay ahayd qisadii cabdullaahi ibnu xudaafa uu kula kulmay madaxweynihii kisra iyo waxyaalihii ka dhacay. haddaan u galno cabdullaahi ibnu xudaafa kulankii uu la yeeshay madaxweynihii la odhan jiray qaysar, wuxuu dhacay kulankaasi xilligii sayidina cumar bnu اlkhadaab uu hayay hoggaanka islaamka ayaa arrinkaasi ay dhacday. qiso cajiib leh ayaana maaragtaahay arrinkaas uu ku dhacay sanadkii 19 ee taariikha hijriga ayaa sayidina cumar bnu اlkhadaab wuxuu diray ciidan lixaad leh. ciidankaas waxaa ku dhex jiray cabdullaahi ibnu xudaafa asahmi, wuxuuna ciidankaa u diray dowladda roomaanka inay weerar ku qaadaan. marka madaxweynaha qaysar oo markaa hogaaminayay dowladdii romaaniyiinta ayaa waxaa si isdaba jooga u soo gaaray wararka ciidanka muslimiinta. waxaa la soo gaartiyey dadka muslimiinta ah inay nolosha ka jecel yihiin geerida. waxaa la soo gaarsiiyey madaxweynaha qaysar oo la yidhi muslimiintu naftoodu waxay la tahay dhiiggoodu daata rakhiis marba hadday u dagaalamayaan tawxiidka. haddaba boqorkan qaysar ayaa wuxuu yidhi hal nin ee muslimiinta ka mid ah haddaad nolol ku qabataan ha dilinina bal ii keena, bal aan fiiriyo oon imtixaano waxyaalaha laga sheegayo muslimiinta geesinimada xaddhaafka leh aan imtixaane ayuu ku yidhi. ilaahay wuxuu qadaray cabdullaahi ibnu xudaafa asahmi in dowladdii roomaanka ay soo qafaashaan oo gacanta uu galo ayaa rabbi qadaray subxaanahu wa tacaala. way soo xambaareen nimankii gaalada ahaa boqorkii ayay u keeneen cabdullaahi ibnu xudaafa waxayna yidhaaheen ina hada min asxaabi moxamed asaabiqiina ilaa diinih qad waqaca asiiran fii aydina faataynaaka bih. ninkan cabdullaahi ibnu xudaafa asahmiyaa la yidhaah wuxuu ka mid yahay saxaabada nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam raggoodii diinta ugu horreeyey ee qaata. wuxuu ka mid yahay dadka islaamnimadu ay aada ugu xoog badan tahay. marka bal warayso de adigii yidhi nin muslima ayaan rabaa bal horta inaan imtixaane. madaxweynihii roomaanku waxau in badan fiiriyey cabdullaahi ibnu xudaafa asahmi wuxuuna su-aal weydiiyey oo yidhi arrin ayaan doonay inaan kuu soo bandhigo cabdullaahi ibnu xudaafow. wuxuu yidhi maxay tahay arrinkaas? wuxuu yidhi waxaan kuu soo bandhigayaa inaad diinta nasaarada aada qaadato oo kirishtaanka aada ku soo biirto. haddii aad kirishtaanka ku soo biirtana si fiican ayaan kuu karaamaynahay. cabdullaahi ibnu xudaafa oo markaa gacanta gaalada ku jiray ayaa wuxuu yidhi si ay ku jirto jees jees oo gaaladii uu ku jees jeesayo wuxuu yidhi
ina almowta la axabu ilaya alfa mara mima tadcuunii ilayh. wuxuu yidhi kun goor inaan dhinto, kun goor inaan dhinto ayaan ka jecelahay waxaad iigu yeertay oo kirishtaanka ah. bal u fiirsada walaalayaal, heerkaas ayaa saxaabada nebi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam ay marayeen. waxay marayeen kun goor oo la dilo inay ka jecel yihiin inay diintooda ay dhinac maraan ama diinkooda ay khilaafaan. maantana waxaan arkaynaa dadkii muslimiinta ahaa inay siisanayaan diinkoodii wax rakhiis ah oo dulli ah ay siisanayaan. waxaanu arkaynaa gaaladii in laga daba sacbinayo oo nin walba iyaga uu ka raadinayo maslaxad. waxaanu arkaynaa diintii dhammeed in la siistay wax nolol maalmeed ah oo hal maalin lagu noolaado. waxaanu arkaynaa gaaladii waddamadoodii in loo sii yaacayo oo loo sii qaxayo iyada oo la weydiisanayo keliya magacayga keliya xus oo aqoonso magacayga bis, adduunya aakhira waan liibaaniyey. saasaa loo arkay gaaladii. waxaanu arkaynaa kirishtankii in soomaalidu maanta ay kusii daadanayso iyaga oo ka baxaya diintoodii islaamka. saxaabada nebi moxamedin calayhi الsalaatu wasalaam waa kanaa cabdullahi bn xudaafa asahmi dhahaya kun goor inaan dhinto ayaan ka jecelahay kirishtan inaan noqdo. madaxweynihii kaysar ayaa wuxuu yidhi, horta nin geesiyaa tahay, haddii aad kirishtaanka gasha buu yidhi boqor kalaan kaa dhigahayaa buu yidhi, boqor ayaan kaa dhigahayaa buu yidhi. wuxuu yidhi intuu dhoolla caddeeyey cabdullahi bn xudaafa ayaa wuxuu yidhi, wallahi low acdaytanii jamiica ma tamlik wa jamiica ma malakat اlcarabu calى an arjica can diini muxamadi darfata cayni ma facalt. wallahi buu yidhi haddaad isiiso waxa gacantaada ku jira dhammaan iyo carabtu waxay milkisay oo dhan aad isiiso si aan diinta nebi moxamed uga laabto, wallahi inaanan samayneyn buu yidhi. bal u fiirsada iimaankooda walaalayaal sida uu u dhisnaa saxaabada nebi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam iyo maanta iimaankeennu heerka u marayo. maanta waxaan aakhiradeennii iyo diinteennii dhammaan ku gadanay adduunye aan qiimo lahayn. cabdullahi bn xudaafa asahmina waxaa loo soo bandhigay inuu xataa boqor noqdo, boqor ya ee uu kirishtan noqdo, markaasuu diiday oo uu ku gacan sayray. marka walaalayaal waxaa la doonay diinta in lagu sugnaado. war diinta yaan laga bixin, war diinta ha lagu sugnaado. war gaajo ood u baktido kun goor ood gaajo u dhimato ayaa kaaga wanaagsan, kaagana qiimo badan inaad ilmilicsi diintaada ka baxdo ood faaruqdo diintaada islaamka. ya carabtu waxay ku mahmaahaan oo yidhaahaan tamuutu اlxura walaa ta'kulu bisadyiha. gabadhu sharafkeeda ayay ku dhimataa iyadoo gaajaysan oo naasaheeda aan ku dawarsan, jirkeedana aan ka ganacsan oo naasaheeda aan ku dawarsan, ya naasaheedana aan wax ku cunin ayay gaajo u dhimataa. war gabadha carabta ama sharafkeeda ilaashanays naaskaaga yaan la taaban uun ayay gaajo ugu dhiman jirin gabdhaha sharaf kale ee naaskooda kuma dawarsan jirin. maanta waxaan arkaynaa bal naas iska daayay diintii qiimaha lahayd oo xiriirkii ilaahay subxaanahu wa tacaala adiga iyo rabbi idinka dhexeeyey ah ayaa waxaa la siisanayaa wax nolol maalmeed ah. haddaba boqorkii ayaa wuxuu yidhi waa ku dilayaa ogaba. wuxuu yidhi waxaad doonta samay buu yidhi oo dil miyaan aniga aan nacaya. waxa dhanoo aan u soo tegey oo gurigayga iyo xaafadahayga iyo carruurtayda aan uga soo tegey in shahaado aan gaaro oo ilaahay dartii la ii dilo soo ma ahayn. tiir baa lagu xihay cabdullah, tiir ayaa lagu xihay. markaasuu wuxuu ku yidhi lugihiisa iyo gacmihiisa iyo madaxa meel u dhow gamuunka uga rida buu yidhi, ku dhufta si uu u jareeyo oo diintiisa uga laabto. tiir baa lagu xihay, madaxa agtiisa ayaa fallaartii laga marsiiyey, lugaha gacmaha agaarkooda laga marsiiyey, ka laabaa la yidhi diintaada.
waa diiday. ka soo fura buu yidhi xarkaha boqorka, soo daaya. waa laga soo furay. wuxuu boqorkii u yeeray dherey weyn, wuxuu ku shubay saliid. saliiddii ayaa la karkariyey oo dab lagu shigay. markay saliiddii karkartay ayaa rag kale muslimiin ee xabsiga ku jiray oo gaaladu ay xabisteen ayaa 2 nin oo ka mida boqorka u yeeray. wuxuu yidhi saliiddaa karkarsamaysa ku dhex tuura buu yidhi, shalab ku siiya. cabdullaahi ibnu xudaafa asahmina wuxuu yidhi fiirso nimankaa walaalaha sida loo gelaayo, adigana saasaa laguu gelay haddaadan islaamnimada ka laaban. waa la soo qabtay 2 nin oo muslimkaa, saliiddii karkaraysaa lagu riday. isla markiiba ilbiriqsiba lafahoodii ayaa soo kor noqday, hilibkiina waxaa cunay saliiddii karkarsanaa. boqorkii marka wuxuu fiiriyey cabdullaahi ibnu xudaafa asahmi, wuxuu yidhi saaxiibadaa ma arkaysaa sidaan u galay? waxaan ballan ku qaadahayaa haddaadan ka laaban diintaada cabdullaahi ibnu xudaafa asahmiyow, sida nimankaa saliiddaa karkarahaya aan ugu riday inaan adigana kuugu rido. waa diiday, ma gelahaya buu yidhi anigu kristan, mana doonayo inaan maaragtahay xilligan aan gaaloobo, diyaarna uma ihi. wuxuu yidhi waa yahay dherega ha lagu rido ninkan, qaada oo ku rida dherega buu yidhi, dherega ha lagu rido, hala qaada buu yidhi. markii dabkii loo sii wado cabdullaahi ibnu xudaafa asahmi ayuu ooyey cabdullaahi. ciidamadii qaysar ayaa waxay boqorkooda ku yidhaaheen innahu qad bakaa. waa ooyey oo boqorow ninkii waa jilacsan yahay, waa jilacsan yahay, waa ooyey. wuxuu marka is yidhi boqorkii hadduu kuu jilcaye, hadduu gaaloobi rabaahi u yeer, war bal ii keenuu yidhi wuu jilcaye. markuu boqorka hortiisa soo istaagay cabdullaahi ibnu xudaafa asahmi ayuu wuxuu yidhi hadda kirishtanka ma gelaysaa, ma kirishtaameysaa, ayaanan dabkaa kugu ridinay? wuxuu yidhi maya, ma gelayo. wuxuu yidhi haddaba maxaa kaa ooyeysiinayay markii dabka lagu sii waday adigii ooyeye, maxaad la ooyday buu yidhi. wuxuu yidhi waxaan la ooyey, waxaan is idhi buu yidhi hadda waxaa lagugu ridayaa dheregan, saasaad ku dhimanaysaa, waxaana ilaahay ku siiyey hal naf. marka waxaan jeclaan lahaa inta korkayga ku taalla oo tina oo nafa in ilaahay ii yeelo, oo naf kasta saas oo kale ilaahay dartii loogu dilo ayaan jeclaalahay buu yidhi. hal naf waa igu yar tahay buu yidhi, alla naftayaa ii badiya buu yidhi, oo naf kasta sidaas ilaahay dartii u dila. intuu yaabay boqorku wuu is yidhi ninkan geeridu waaba ku faraxsan yahay, haddaad disho wuxuu u arkaa unniyadiisii iyo waxa dhan oo mustaqbalkiisa dhan uu ku faanu ka dhiganayaa geerida. wuxuu yidhi boqorku madaxayga ma dhunkanaysaa buu yidhi, madaxayga ma dhunkanaysaa? haddaad madaxayga shumiso waa ku sii daynayaa buu yidhi. cabdullaahi ibnu xudaafa yidhi kaligay ma doonayo inaad isii dayso, ragga xabsiyadaada iyo jeelashaada ku xihan ma sii daynaysaa dhammaantood oo muslimiinta ah? wuxuu yidhi haa waa sii daynaya. cabdullahi ibnu xudaafa marka wuxuu is yidhi hal cadow ee cadowyada ilaahay ka mida madaxiisa xunkaa haddaad dhunkooto, taana aad ku sii dayso boqolaal muslimiina, walle adigaa faa'iide qaba. intuu istaagay uu gaalkii madaxiisa sumiyey cabdullaahi ibnu xudaafa asahmi. boqorkii roomaanku wuxuu amar ku bixiyey muslimiinta jeelasha ku xihan oo dhammaan in la sii daayo. cabdullaahiyuuna gacanta u geliyey, saasuuna cabdullaahi ibnu xudaafa ku soo badbaadiyey boqolaal muslimiinta ka mid ee jeelalka roomaanka ku jiray. haddaba walaalayaal, cabdullaahi ibnu xudaafa ayaa wuxuu u soo galay madaxweynihii islaamka cumar ibnu alkhadaab, wuxuuna u sheegay sheekadii uu kala kulmay boqorkii gaalka ahaa. sayidina cumar ayaa aada u farxay. markuu fiiriyey sayidina cumar nimankii lasoo qafaalay oo cabdullaahi uu soo fakiyey, wuxuu yidhi qof kastee muslime adinka idinka mida raggiina lasoo fakiyey
waxaa xaq ku ah inuu dhunkoodo madaxa cabdullaahi ibnu xudaafa asahmi aniga ayaana bilaabaya inaan cabdullaahi ibnu xudaafa asahmi madaxiisa dhunkoodo. waa istaagay sayidina cumar madaxuuna ka dhunkooday cabdullaahi ibnu xudaafa asahmi. haddaba halkaas walaalayaal waxaa noogu dhammaaday taarikh nololeedkii cabdullaahi ibnu xudaafa asahmi. wabillahi towfiiq, wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh.